تنكره أن سوماليدو واقعي هي حقيقة كما شاكيسو نكره هذا مدحوين محمد عبد الله فرماجو قبل كجدو أيو أفر يلا بعطيك الساعة كهالله مدل كده الله دورت مثل سوماليا الله دورت هدو كده حق يدفعدين أيو ما هو حق السنة يصل إلا ويس السعران تهي بطلان تنيو حقا دحيا لا بطلان يلا هدي برلمان تاي هدي كراسة هدي قيب سومالياتك ووح آن دادكي كفر لي شان دبال يبر بايسا ساران ما وحو قرن لاي وروح أنا ويسا ساران تهي سيدينا آن قيبتي نيدي سيو قيبت قودنا وقبلات الله قيبنا إياه قبل كسترين ثم من قبلات ويهيبا قبل الله قد فني وسيدي عدالة طيب هدان مركا عدالة للدونين عدالة غضو وحبطر ما يصدر كنا وديك بحية مركا فرماجه وحو كفكري إنه قنعيو لباتن قف أو كيمي محان كودا هذا هرجيسة أو أنا معها أو محان كودا هذا السوش كتجيس ده يوم بشجع دولة السومال لا شجعته سومال لا وما قبيس وحنا دورنا معه أنا أقول مري ما نجيرين ما نقولينه قميص تدوبي قميص تدوبي ما جيسي لا حساب تمو لا قد ضبطه لا حساب تمو حقول لي هاي ما أنا لنا هاي ما الصوماليين ضن وضع قادني كاسميش كبحي حدود قبلنا iyo regionskan iyo stateskoda waxa sameeyay dawladda siyaasadda maaqaasa u dambeysay dawladnimada sida daraaddeed gobolka iminka Sanaag oo kale markii ay soo gashay jabhadii aslam ee dagaal ka dhacay ciidamadu isku soo qabsadeen 1990kii bara saabkii gobolka wuxuu ahaa Jibril Ali Salaad iminka baran buu joogaa wareegtadii soo baxday waxay ahayd fa ba 385 in lagu amrayo in gobolka maamulkiisu uu wareego degmada baran marka gobolka Sanaag xaruntiisu horta waa baran wareegtadii u dambeysana waanu haynaa oo dawladda ka soo baxday algaaba way ahaan jirtay gobolkuna waa system la bedelo hadda meel baa lagu shaqeeyaa waa degmooyin dhulku marka sidaas un buu ah magaalada Ergaabana dadkaas waxbay ka digaan laakiin intooda badan dadka deegaanka iska marka la isu geeyo gobolka Sanaag dadka jooga statistics-ka u dambeysay ee hay'aduhu sameeyeen waxa lagu qiyaasay 1.2 milyan oo gobolka Sanaag gobolka Sool sidoo kale iyo ka badan weey marka dadka inta leeg xaqoodii in la iska indhatiro oo gada laga sheekeeyo gado de farmaajo barota xisaabta dadka Soomaaliyeed oo balna eega ilaahay inta ka baqdaan xaq iyaga hadaad raadisaan xaqiina helaysan nin walba waxa ka maqan ka hadashan xaq baad u leedahay imika saynu ogsoonahay waxa la sameeyay maxkamad sare waxa la yiri qof kasta cabashadiisa kan waxyaalaha cabashada kamid ah waxa kamid ah aqalkii sare baarlamaanka kale waa qabiil baa loo qaybsaday aqalkii sare gobol kasta waxa loogu dhiftay 3 gobolka Sanaag 3diisii hal baanu ka haynaa labadii kale EBRDF ku shaqaysatay gabraacidu doonasi oo gobolka Sool sidoo kale inuu mid hayo iyo laba hayo ma garanayo laakiin inaha aan bay noqonaysaa waxay ku maqan tahay qaybtiisii waxay ku maqan tahay EBRDF iyo gabre degmada buuhood qaybteedii oo ay qof yeelanayso wareeg koowaad qof yeelanayso wareegna waayso todobada marka xubnood gobolada Sool iyo Sanaag ka maqan barina wuxuu leeyahay 3 hadii uu dhameystirantay hadii kale maxaan ku leeyahay nugaana 3 baa leedahay mudugna 3 baa leedahay dadkaas hadii ay ka maqan tahayna ma hubo xaqadiisa uu kala haystaan laakiin iyagana waxaan leeyahay waa xaqii niyadaatada waxaan leeyahay marka dadka gobolka degan gobolada Sool iyo Sanaag iyo gobolada dulman ee xaqoodii maqan yahay Puntland waa tihiin laakiin Puntland حقيني ما يالو بطلنا من قبلات بالسية أو صومالية أو قنديس لكن إنك حقيني يو قبلاتني حمر باكو عنا الضوبان وحيسكو هيستان هبيني مالين مدان سيد عبد الله الدني يو فرماتنا واتا وروادت كان حقه دي كان يو قسمت دي يو قيبتو دي إلى هاي أما أنا يدي بما يجو دي بتاعهم بي هاي وكد قال لي ودلك يدك بين كبر بليو فرماتو وترجع مركا وحنا دلله هدينا حقه دد كليه هاي إن إسكي يجين oo qof kasta xaqiisii aanu helin dawladnimada socon mayso dalkuna uu dhigbaxaya cadaawad iyo burbur iyo isnacbaan isii kordhinaysa nin aan dal lahayn oo dad aan lahayn inuu sheegto oo umadu raali uga noqoto oo uu been dadka ku faafiyo wax suurtagelaya ma waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo inaad horta soo noqonaysid u maleyn maayo inkastoo dadka aqligoodu uu yaryahay boqolkiiba 80 sababtoo ilaahay quraankiisa in badan wuxuu ku leeyahay dadka badankoodu waxba garan maayaan dadka badankoodu aqli mala dadka badankoodu waxba fahmi maayaan dadka wax fahmaya waa in yar dadku kuma qiimeyn karaan عناصر بالكوسي ديسي والباهنتا فرماجة حدون تيسا حمر كو آسان حدون تاودو حمر هدي كو آسان تاي هلاقاسي يقولها كسوبح بارلمانكا كسوبح كرسيقاقي قدو يالا واسيدا صومالي وحكو غيبسطي
marka waxaan ku leeyahay iska daa mushxarada beenta iyo riwaayadda nasraadka iska daa qancinta 20 qof iyo 30 qof ee aad isleedahay waxbaad ka helaysaa xaqa ilaahay raadi xaqa ilaahay iyo cadaaladda ku shaqee haddaan cadaalad ku shaqeyn cadaalad darrada u dhimanay taasaan ku leeyahay mustaqbalkaagana waxba yeelaysaa aakhiradaadana waa laga xisaabinaya wixii ilaahay ku dhiibay oo kala xisaabtamay oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam mas'uul aan ra'yiyad qof kastaba waa mas'uul wixii ilaahay u dhiibay waa laga xisaabinaya waxa leeyahay dadka gobolka Sanaag iyo Sool u dhashay iyo gobolada Puntland oo dhanba war waxaad isku kaashataan adduunka waxa jira kun maxkamadood wax laga dacweeyo 300 oo hawlood baa ka xadimi kartaan dawladda xaqiina raadsada idinkoon waxba yeelin maxkamadaha iminka waxaan arkay ninka horufadhi gobolka Sool buu dhashay horufadhi iyo Sanaag buu u dhashay shirkii maxaan ku raahday macal farmaajo ka qayb galay madaxweynayaasha adduunka isugu imaan Washington uu tagay wuxuu garan waayay nuqul waraaqa oo qaybi waftidan fadhido waxa tiraahdaa Puntland waa 5 gobol iyo degmo dadka jooga gobolada Sool iyo Sanaag Puntland ay dhisteen tii Soomaaliya iminka ma jirto maamul goboleedada wax lagu qaybsadaa iminka waa gobol state weeye 5 gobol iyo barba isku cuna duubana waxa la siiyaa qaybtii ay gobol iyo bar lahayd inta galmudug leedahay baa leedahay hooya ma cadaaladda dadka kan waxoodii maye ama Puntland ha loo dhiibo ama iyagaba ha loo dhiibe isku mid baanu nahay war waxayna horta aan helo maamul goboleed haddii la samaynayo garawa laftigeeda ku shaqeeya kuwa la ascaanood ku shaqeeya iyo baraha haddii la samaynayo wax farqiyo ma dhaxayaan xaqaaqii inaad hesho baa muhiim inta garawa joogtay iminkeena matashay Puntland inuu hartinimo wax ku qaybsanay cidii doonta ku qada waaba leesasiinaya bariga dadku way kala xishoonayeen xildhibaanada iminka gobolka Sanaag oo kala xildhibaanadiisii warsagaliga laba xildhibaan oo kamid ah dib u bixiyay dadku ku qancinayo dadnimo iyo dad baa la doonay kala badsigaasi wax macna ay kuma jiraan laakiin waxa muhiim ah warada xaqeennii haddaynu ka hadalno xaqeena meenan xaq u lahayn ma nin kursi doonaya oo aan dadtoona dan kala hayn baynu xaqeena ku istaagayo ummadda kale iskaga dhisaya war ninkan qaylinaya ee xaqdarrada u qaylinaya xaq bursi buu ku doonayaa waxba kama maqna waa ninka dawladda uu dhistay madaxweynihii isagu ka dhigtay oo ra'iisul baarlamaanka isagu ka dhigtay guurtiga u sareeyay ka dhigay isaga maxkamadii u sareysay isaga ka dhigay dadka ka qancinaya maamul Soomaaliland ma wuxuu diiday tii Soomaaliya oo 5 golaha sare ahayd oo aad ogeydeen cadaaladda uu sameeyay siyaad bare xataa beelaha la hayb sooco uu siiyay awoodda ugu badan oo cali samatar kamid aha taas waxay ku tusaysaa in cadaalad wax ku shaqeynay dadkii iska arki waayay minority-ga isku arkay cadaaladda wax ka noqon waayay ayaa dagaalka bilaabay iyo mid xukun doona nin kastana sidii uu yeelay iyo wixii uu geystay taariikhda ka xisaabin doonta waana laga xisaabtamaya iminka waxa jira maamul goboleedka la yiraahdo Somali State ee kilalka shanaad degmada la yiraahdo Gaashaamo waxbaan idin faahsiinaya baara degmada la yiraahdo Gaashaamo waxay xukuntaa ilaa iyo Beledhiig iyo Coodanle waxay u jirtaa 10 kilomitir waxaan dhamayn Buuhoodle dadka degan way diideen inay raacaan Buuhoodle oo degmada Danood ka mid noqdaan waxay hoos tageen maamul deegaanka Gaashaamo oo dhagax buur laga xukumo magaalada la yiraahdo Marsin waa degmo eel baxay oo ay degaan maartay dadka reer Gaashaamo way diideen laba talaabay u jirtaa iyada dhaqaale iyo horumar iyo maxaa ku budget bay ka helahay way diideen oo Gaashaamo yiraahdeen baanu ka midna bal ninka sidaa yeelaya anigu khasab inaan ku raaco waxaygana uu qaato dadkana waxa ka dhaadhiciyo mar kastana uu qayliyo daaro basda yeelaya waxa baarashada uu ku qayliyo in dadku ka dhageystaan horta aqligu ha shaqeeyo dadkii oo ka kaca aqoon-yahanada leeyihiin meel kasta ka mudaharada safaaradaha adduunka taga UN ka taga amisoonta taga warbixintiina gudbista waxa tagtaan maxkamadaha adduunka taga tan horan looga yeero farmaajo iyo wasaaradiisa iyo maxkamadda sare tan Ingiriiska taga kuwa Turkiga ku yaala ka dacweeya kuwa Qatar ku yaala ka dacweeya shir kasta oo la yimaado nuqul iyo waraaqa qaybiyo oo gala war dad nool iska dhiga oo xaqiina raadsada Puntland ka go'nay waxbayna Puntland waynu dhisno laakiin Puntland waxa laga rabaa 5 maamul goboleed iyo bar xaqeedii inay keento oo aynu isu qaadno doono ayaa la inaga doonaya xaqeena inaynu raadsanana waa min diin ilaahay baa inagu jeclaanaya dagaalka iyo qaylo iyo waxba ma tarto dadkan waxa leeyahay jidbaysan ee maalin kasta baranaya Buuhoodle farmaajo jacaylkooda loo leenayo war farmaajo gobolka Sanaag iyo Sool baa la weydiiyay afkiisa wuxuu soo marin waayay
gobolada sool iyo sanaag Soomaaliyiin bigaati bay wax ku qaybsatay waana iga horeysay xagee la raaciyay xildhibaanadoodii dad daarood hadday yihiin daaroodkay raaceen oo waa daarood hadday dad maadila yihiin dad bay raaceen meesha xildhibaankeeda laga soo doortay bay yihiin xildhibaankoodu xagee mara ayay oran waay Soomaali hayb wax ku qaybsato dusha reformada waa dogtii intaas ku guuri waay 24 sano wuxuu ka hadlayaa gado Axmed Madoobe ku haysta oran waay wadadka si fiican loo macaamilo shaqeeya Soomaali xukumaaya inuu maalin kasta ka hadlo degmo u gobol u dhashay waxa weeye inaga kastiray noo tayna taa ugu raali noqotaan xaq baa la isku haystaa cidina isma diidana wax dadka ka dhaxayana ma jiraan qof waliba wax ka maqan buu doonaya kursiga qaldamo qofku waa ka daba hadlaya uu doonaya uu xaqiisa suu ku heli karo ku raadinaya waxaan idin leeyahay Puntland xaqeena kaga maqana waynu ka doonaynaa waynu ka helaynaa waynu raadinaynaa waynu leenahay oo lix jecloonaynaa Puntland naga xaqa inaga maqan federaalkana Puntlandna waynu qaxayn inaguna waynu tagi waynu raadin imika waxa uu ra'iisul wasaaruhu yiri gobolka Gedo